duqa degmada Burco oo helinaya xogayaha fulinta ee dawladda hoose iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan aqalka golaha deegaanka Burco ayaa si rasmi ah xarunta dawladda hoose u soo bandhigay qalab cusub sidoo kale bulshada reer Togdheer ugu baaqeen cashuuraha si hufan u bixiyaan wuxuun baan uga jeednaa oo baytul qasiidkeegu yahay laba qodob gaadiidka maalinta ka dambaysa aan insha Allah taala ku soo kordhino dawladda hoose magaalada Burco magaalada madaxdii labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo alxamdulillah tirada dadka iyo tirada ismuhuba maalinta ka dambaysa sii kordhayaan xajmigeedu sii kordhayo adeegeedu sii badanayo anaguna intaalkayga dadaalkayga insha Allah taala waxaan jecelahay inaanu maalinta ka dambaysa waxyaabaha muhiimadda ay loo baahan yahay adeega dadweynaha loogu adeegayo inaan waxyaabaha cashuurta aanu kaga qaadino inaan ugu soo iibino insha Allah taala ayaan rajaynaynaa hadii Ilaahay raali ka noqdo cashuurta marka bixisaan dadweynahan ayaa anagana nala xisaabtami kartaa oo naga dooni kartaa wixii hadee beedankeeda lagu qabtay markaasaan anaguna idin muujin karnaa cashuurtu waa waxa aynu wax ku qabsanayno wax cid kale loo qaadaya maaha wax meel kale la geynaya maaha waa waxaad naftaadii ka qaado naftaada u qaatay waa wax adeegaaga ku qabsanayso waxaan leenahay dadweynaha reer Burco waxaanu iibinayno iyo qalabka mar baan soo kordhinayno aan hore u jirin kamaanaan keenin meel kale iyo degmo kale iyo gobol kale toona kamaanaan keenin cashuurta yaraan ka ururin wixii ka biira baan marba wixii loo baahan yahay ee goysoon soo iibinay sida awgeed waxaanu codsanaynaa ummadda reer Burco inay aad noola shaqeyso oo aad wax noola qabato sida noola shaqeynayana waxa weeye in ay cashuurta bixiyaan maamulka fulinta ee dawladda hoose ayaa muddooyinka ugu dambeeyay u muuqday kuwo awood saaray si dawladda hoose u heli lahayd qalab ku filan oo ay ugu adeegto bulshada waa Sabri iyo Nakruma TV-ga qaranka Burco.